marka tahay rakaab ku safraya diyaarad isla gudaha Soomaaliya filashadaadu waa in duuliyaha diyaaraddu uu yahay nin sababtoo ah waa sida looga bartay si hadda arintu ma ahan oo waxaaba dhici kartaa in haweeney ay tahay qofka kumanaanka fiid hawada idin gelinaya adiga iyo inta la socota diyaaradda tani waa kabtan Yasmiin Cabdi Faarax oo xilligan ku dhawaad 30 rakaab ah oo aan ka mid ahaa ku duulinaysa madaarka Aadan Cadde safarkeena wuxuu ku wajahan yahay magaalada Dobley oo ay si maalinlaha uga safarto diyaaraddaasaytu oo dejinayaan kacani aaniyol mas'uuliyadda dadka adag saaran tahay sida naftoodina wax buukeenin oo meesha u socdaan si fiican ku tagaan oo salaaminimo ku tagaan ayadoo balaayo jirin sidaasaytu mas'uuliyaddaasana saaran مسؤولية الديارات دنا وين صارنتها الديارات دو وإلا هذا هذا سكو غانا هذا ملك كلا سكو غانا وين صارنتها responsibility كذا وبدنا كم إذا ركاب الديارات دو وحي واحد وحكو عصب إن دوليها الديارات أي تهي هويني سيدا سوي تهي وحي ديرجلين أموجيين كابتن ياسمين أدي أدعو همبلين أنا قبلنا سوماليد أو كدولية الديارات ده taasoo macnaha nagu dhalisay inaan diyaaradda raacno maadaama ay tahay dadka ugu yar haweenka macnaha Afrika oo dhan oo diyaarad wax wado oo ay ku yar yihiin haddana waxaan aad ugu dhiirigelinaynaa maadaama haddana ay tahay gabar Soomaaliyeed in u baahan tahay waxaan geesinimo iyo diyaaradda macnaha ma ahan wax la iska wadaayo aad iyo aad ugu qanacsanahay inay gabar Soomaaliyeed ee diyaarad noo wada duuliyo naga noqoto kabtan Yasmiin Cabdi oo muddo badan ka soo shaqeynaysay Soomaaliya kadib markii ay dalka Kenya ka baratay cilmiga aviation-ka ama duulista shaqadani waxay midnal u tahay hanaan ay lahayd yaraanteedii duulinimo waxaan ku bartay iskuulka oo lagu baranaa jirto magaalada Nairobi Kenya and iskuulka sare dugsi sare markaas soo dhameeyay sidii dadka oo dhaqtar inay noqdaan oo rabaan qaal lawyer nimo sidayn u rabaan sidaas camal duulinimo u rabay duuliyuhu waxa uu ka mas'uuliyad badan yahay wadaha gaadiid kasta oo dhulka ku socda dhammaan tilmaamaha uu ku soconayo iyo go'aanada uu qaadanayo waa kuwa u baahan taxadar connectionka pilotkii towerka emergency procedures wax la dhaca jirto diyaaradda lagu baraayo oo markii sidaas camal haday dhacdo soo uu la halil u raadin ugu bixi lahayd situationka so marka emergency procedure-ka raace sidii lagu bare and side muwalan garan kartaa this procedure inkastoo ay duulinimadu u baahan tahay inuu qofka u aado goobaha waxbarashada sida jaamacadaha ama iskuulada haddana si la mid ah dalwarnimada oo kale ee baabuurta gaadiidka kala duwan dadka ka agdhow kabtanada diyaaradaha waxay fursad u haystaan inay baran karaan sida diyaaradaha loo duuliyo iyagoo aan aadin dugsiyo wadista diyaaradaha waxay dhinacyo badan kaga duwan tahay tan gaadiidka kale ay dadku fahansan yihiin oo marar fara badan waxaa fursad nasasho ah heli kara duuliyaha iyadoo haddana diyaaradda ay hawada ku jirto autopilot waxa diyaaradda markaas when you engage the autopilot adiga gacantaada waa ka baxday it's kaligeed way marka hadda diyaaradda select altitude into feet ku soconi kudi qor markaas laakiin marka take off iyo landing ka autopilot ma adiga way binafsi ودوليشما ولا ديارة كحنيسة ياسمين أو حد ديارة أكل وضع كلية جودها صومالية وحيكوها من إنسان نقطة مستقبلك دولية عالمية وحينا أوجاتي شروطها لو جبها هي قفك لو قادن كرو دولية أكل جوشة قاردها أما لايسنس كحرنت هاي مركا لايسنس كأوهري وحواي private pilot license أو قاضي كرتا صاحبياش هذا فاميلك إيوه حسيته أفرقف ديارد أفرقف حال لك وقاعدة كده commercial pilot license حددت كسا دواعي مد كلاجر ATPL ده إذا سو مرك حدا سيدان أو دتك commercial pilot license هايستا